waan ku faraxsanahay xaqiiqiyan inaad aqbasheen hawshaan aad u istaagteen aad doonaysaanna wax ka keentaan dadka Soomaalida ahna waa fursadda kaliya hadda u taala haddii ay awal rabeen inay wax ku darsadaan dhismaha dalka iyo horumarkiisa waxa ugu horeeya amniga inay nagala shaqeeyaan oo dhaqaale ku bixiyaan sidii ciidamadana niyadda ugu dhisi lahayn kii dhaawacma aan wax u gaarsiin lahayn kii dhinta caruurtiisa iyo agoontii aan ka warqabi lahayn taas waxay keenaysaa marka kuwa hadda dagaalamaya oo frontiga ku jira inay ku dhiiradaan ay yiraahdaan shacabkii Soomaaliyeed yaa idinka dambeeya dawladdii baa idinka dambaysa ee dalkiina difaacda reerihiina iyo caruurtiina difaacda gurihiina difaacda inay yiraahdaan bacdama ay og yihiin annaga inaan garab u nahay oo aan daba taagannahay annaga markaan leenahay waxaan ka wadaa shacabka Soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba iyo dawladda marka waa mahadsantihiin aad iyo aad yaan idinkaga mahadcelinayaa shacbiga Soomaaliyeed siday ugu heelan yihiin laga bilaabo habeenkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku dhawaaqeen in joogno iskoola booliisiyo ilaa waqtigan dadku ay la soo xidhiidhayeen ilaa xad waxay gaadheen ay yiraahdaan lacagii waaba diyaar ah koonna noo sheega yay gaadheen